بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أنت كدب مانتي وحن جعلها إن هالكان كدر همبليدا سنة كان مالنتا أرجع دونك أم وول سايد دي أو كوادن قميص طلبات بش أكتوبر سنة كان يتهي توانك بش أكتوبر لبكون لواتني أفر إيو مناسبة مالنتا والشعب عالمية كوادن حدا labaad bisha Oktoobar sanadkan ku aadan hadda nasoo haysa oo taariikhdu ay noqonayso 13 Oktoobar 2024 munaasabada maanta halkan lagu qabtay oo labada ujeed wax xambaarsan ayaan hambalyo soo diraya dhammaan kaadiriinta caafimaadka ka shaqeeya horumarinta daryeelka aragga iyo badbaadada aragga iyo daaweynta cudurrada indhaha ku dhaca ee Soomaaliyeed iyo caalamigaaba. sidoo kale waxaan halkan uga hambalyeynayaa ururka indhoolayaasha Soomaaliyeed, ururka dhalinyarada aragga naafada ka ah ama udhan la yiraahdo oo iyaguna ka shaqeeya dhaqan celinta, tababarka, shaqo raadinta dadka aragga naafada ka ah ee Soomaaliyeed. runtii labada howloodba muddo dheer ayaan ku dhex jiray oo maaragtay dhinacna maadaama aan dhakhtarka indhaha ka shaqeynayay badbaadada, ka hortagga iyo daaweynta cudurrada indhaha ku dhaca iyo sidii indho-la'aanta looga hortagi lahaa. dhinaca kalena muddo dheer ayaa waxaan saaxiib la ahaa dadka aragga naafada ka ah oo sabab badan dartood araggi baalay oo markaa aan daawada lahayn, laakiin dad caqligoodii iyo jirkoodii intoodii kale u dhammaystiran tahay. maxaan ku rahdaa adduunyaduna hadday gaarto horumar dadka lagu dhaqan celin karo, farta u gaarka bareelka la yiraahdo la bari karo, kadibna ay dugsiyo iyo jaamacado ka soo bixi karaan, ayaguna ay wax qabsan karaan, bulshada iyo qoysaskoodana wax tari karaan. runtii marka farxad ayay tahay maantay halkaan inaan hambalyada aan ka diro. muddo hadda laga joogo waqti aad iyo aad u dheer ayaan ka mid ahaa dadkii dhalinyarada ahaa oo hawsha ururka indhoolayaasha Soomaaliyeed 1988 aasaaskeedu wax ka bilaabay. nasiibna waxaan u yeeshay 1989 inaan ka mid ahaa wafdigii kaxeeyey 9 carruurta indhoolayaasha ugu horreeyay ee Soomaaliyeed ee la geeyey waddanka Bahrain iskuulka ku yaala ee la yiraahdo Macad Al-Nuur Al-Iqliimi oo loogu talagalay dadka indhaha la in wax lagu baro. 9 carruurta oo ku dhamaystay dugsiyadoodii sare halkaan nasiib wanaag waxay noqotay qayb ka mid ah inaan ka qayb qaato sidii ku tagi lahayn waddanka boqortooyada midooda ama United Kingdom UK, Britain iyo Northern Ireland oo ay jaamacada uga baxeen, badankoodina waddanka dib ugu soo laabteen, isla markaana halka ay ka bilaabeen sanadkii 2003 aasaaskii dugsiga ugu horreeyay dhaqan celinta iyo tababarka iyo waxbarashada dadka aragga naafada ka ah dugsiga Al-Nuur ee magaalada Muqdisho oo 20 sano shaqeynayay. aan ka mid ahaa dadkii ra'yigiisa asaaskiisa wax ku lahaa. dhalinyaradii waagii horaan kaxeeyey Bahrain geeyana ay hormuud ka ahaayeen. maantayna dhalinyaradii ka soo baxday iskuulka ay ayagu samaysteen ururka udhan la yiraahdo ama ururka dhalinyarada aragga naafada ka ah oo ilaa 100 ka mid ay jaamacada ka soo baxeen ama ay dhigtaanba. runtii waa dadaal muuqda oo miro dhal ah. intii ka soo qayb qaadatan waxaan leeyahay ilaahay ajar ha ka siiyo, inta hadda sii wadan ilaahay ku kaalmeeyo. waxaan doonaynaa silsiladda inay isdaba socoto oo jiilba jiil kale oo gudbiyo aragga iyo daryeelkiisa. waa mas-uuliyad wadareed saaran bulshada oo dhan. waxaan rajaynayaa sanadkan oo maalinta aragga adduunka halayskeedu ay tahay ku kaalmay ilmahaaga inay indhahooda jeclaadaan, oo ilmaha waa in lagu baraarujiyaan ay dareemaan qiimaha aragga iyo indhaha, ay ka fogaadaan kombiyuutarka ama geymiska ay waqtiga dheer gelayaan, nafaqada ay ku dadaalaan. haddii muraayada loo qoraysan codad ka qaadin, waalidkuna uu la dadaalo haddii wax laga dareemo in isbitaalada la keeno. sidoo kale maalinta usha cad oo iyaduna ay tahay astaanteeda sanadkan, usha cad oo u taagan xornimo, maadaama ay tahay usha ay adeegsadaan dadka aragga naafada ka ah inay ku socdaan oo waddooyinka ku maraan oo maaragtay kaalmo ah. waxaan leenahay bulshada
inteeda kale inay ku baraarugsanaato waaye oo ay la socdaan arrintaa marka anigoo ku hadlayo magaca hay-adda Al-Nuur Foundation ee Soomaaliya isbitaalka Dalmar Specialist and Teaching Hospital iyo macadka cilmi baarista iyo horumarinta Soomaaliyeedba waxaan hambali u dirayaa dhammaan shaqaalaha hay-adaha kala duwan iyo sidoo kale bahweynta Soomaaliyeed ee ka shaqeysa daaweynta iyo ka hortagga cudurrada indhaha ku dhaca iyo bulshada kale ee bahwadaagga nolosha ka shaqeysa daryeelka dhaqan celinta tababarka iyo u abuurista shaqada dadka aragga naafada ka ah waxaan leeyahay sanadkan sanadkiisa ku gaara guul iyo horumar halkaan aan kasii wadno dadaalka aan hayno wabillahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Dalmar Specialist and Teaching Hospital. Higsigeenu waa caafimaadkaaga.